buugga in aad akhrido u qalmaa waa kan aad ku khasbanaato in aad dib u akhrido. Qoraadan waxaa iska leh Susan Sontag oo ku dhalatay New York, America, dhalatay January 26keedii 1933, dhimatay December 28keedii 2004. waxay ahayd Amerikaan qoraa ah, filim sameeye, filosofer iyo macallimad iyo siyaasadyahan. Inta badan waxay ahayd mid qorta xigmadaha cajiibka ah, waxayna sidoo kale qortay sheekooyinka khiyaaliga. Noloshu ma ahan dhibaato in la xalliyo u baahan, balse waa xaqiiqo in lagu waana qaato u baahan.